بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى محله وما أنت هالكن سوكا كيني وحان الله يا هرت همبليو يعني الله هي جوشي أتكسر هويسين إلى كاتين عدوجا ومدى الصوماليات أنت صوصنا سودي بهاي إن كاتين وأتكجول ستين ويدين ببعدي جوايين أو إسكاكين محكو دفاعي وايين مركز ماشي اعتمادي وعرّي صماها وادغن كليهين marka waxa loo baahan yahay sidii aad magaaladan uga erideen sibiid iyo caano aad uga erideen oo aad uga adkaateen inaad u difaacataan magaaladan shacabka magaaladan degan oo muddo dheer ay gumaysi ku hayeen aad ka difaacdaan waa yeelaysan Soomaha waa ka difaacaysan Soomaha marka waxa la rabaa inaad soo jeedaan inaad seexan inaad meesha joogan aad ugu tagtaan shacabkiina inaad difaacdaan waa fulayo waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan inay caruurta laayaan laakiin wiilal idinkoo kala ah marna hortiin ma imaanayaan mana idin soo wajahayaan maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo dhiiranaan inaad la hortaagan tihiin waxaan ugu tagaynaa meel kasta ay joogaan annaguna waa idin garab taagannahay ma maqlaysaan annaguna waa idin garab taagannahay waa idin soo booqanaynaa ciidamo kale idin ku soo kordhinaynaa waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan marna ma yeelayno marna ma udul qaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku sameystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo caruurta ay maxaan ku raadaan ku laayaan oo hantida ku burburiyaan ka yeeli mayno idinka la rabaa inaad hortaagnaataan inaad daba gashaan inaad eridaan meel alle meesha joogaan aad ugu gashaan soo ballan ilaahay maaha waxaa la rabaa inaad adkaysataan dagaalku wax kale ma aha qof walba qofku ka adkaysi badan yahay hal saac Allah ka dhigo yay guushu ku dambaysaa wax kale ma aha guushu waxa iska leh ninka xoogaa yar ku dara maxaan ku raad adkaysiga dalkan idinka iska leh meelna uga tagi maysaan cidna u deembaysaan annaga laga rabaa inaan difaacno oo dadka naga dambeeya aan u diyaarino nolol wanaagsan ma maqlaysaan oo aan nabad keenno soo bal ilaahay ma mar kale weerarina Soomaa waxaan ogahay inay baqayaan taasaan ogahay soo ma fahmin yaa dalkii idin difaacaya adigu haddaad u dhiman yaa ku difaacay dalkaaga annaga la rabaa dalkan inaan u dhimanno markaan dalkan u dhimanno aan istaajinno oo dalkeena dhisano oo xooggeena dhisno inaan annaguna meelaha kale adduunkan ugu tagno afrikada kale inaan caawinno saas ma yeelaynaa soo bal ilaahay maaha waxaan idinku boorinayaa inaad adkaysataan waa adkaanaynaa insha Allah intaan kaliya maahe meel kastaan ugu tagaynaa waana jabinaynaa hadday isdhiibaanna waa alxamdulilah waana hubaa inay isdhiibi doonaan ummadda Soomaaliyeed kulli waa in soo fiirinayaan waa la ka sheekeeyaa waxaa la yiraahdaa ciidankii goordan ka yimid oo sabiid qabtay iyagoon cidna wehelin runtii magaalada iyo cid walba waa ka sheekeeyaan waxaa la idin yaqaanaa geesiyiin waxaa la idin yaqaanaa haliyeeyo yaa la idin yaqaanaa xaqiiqatan waa inaad tustaan inay arrintaas dhabtahay waxa weeye waxaad tihiin mustaqbalka waxaad tihiin hoggaanka dalkaad tihiin waxayna ku bilaabataa inaad dalkaaga difaacato soo ma garan saasaa noo ballanna Soomaa ilaahay hortiis waa difaacayaan dalkeena Soomaa dhiigaan u daadinayna Soomaa insha Allah hadduu ilaahay waa mahadsantihiin